أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته daawadeer ku soo dhowaada janalka kaahiye academy haddii janalka markii kugu horreysay ay tahay sabskraib saar gambaleelkala furo muuqaalka la garay asxaabtada la wadaag mahadsanid bismillahi raxmaani raxiim waxaan bartanka uga jirnaa maadadiinii xisaabta fasalka form 4 chapterka koowaad ee trigonometry hore waxaan u soo qaadanay ciwaanada sida sum and difference formula half angle double angle product to sum to product maanta waxaan joognaa marka at the end of this lesson learner should be able to dhammaadka casharkan bartuhu wuxuu awoodi doonyaa solving trigonometry equation by linear method inaan xallino isla egta trigonometryga anagoo u marayna linear method habka linearka by quadratic iyo by linear iyo qaabul kala duwan lagu xaliyaa jirta hadda qaybta aan ku marayno waxaa waaye by linear method aan ku xalinaynaa hadda waa la yidhaha by linear method ayaan ku xalinaynaa waaya trigonometry equation 1 waxaan ka bilaabaynaa marka trigonometry equation 1 what is trigonometry equation waa maxay trigonometry equation horta muxuu yahay waa maxay isla egta trigonometry maxay tahay trigonometry equation waa isla eg trigonometry marka maxaa loola jeedaa isla egta trigonometry waa kana a trigonometry equation isla eg trigonometry is an equation waa isla eg that contains ka kooban trigonometry functions fansaarada trigonometry ay ka kooban tahay such as sida fansaarada yaa waa sin theta cos theta tan theta fansaar haddaa maqasho waa kuwaana sin cos tan ah fansaar la yidhaha marka waa equation ka kooban fansaaro trigonometry ah ayaa waxaa loo yaqaanaa trigonometry equation the value that makes the equation qiimaha isla egta ka dhigaya true run koolid waxaa lagu magacaabaa solution xal equationkan qaybtan waxay la mid tahay qaybtan marka lagu leeyahay numberka laba qaybood marka la jekin garay tago isku mid ka dhigaya ayaa waxaa naqanaya solutionka waa numberka lasoo saaraya numberka la raadinayo mar walba waana solutionka numberkaasa la yidhaha solution example 1.13 1.23 عفوا example 1.23 wuxuuna leeyahay solve waxaa xalisaa the equation isla egta 2 sin theta plus 1 is equal 0 yes equation ma tahay haa isla eg waa sababtoo calaamadda equalta meeshan taal equalta hadday meeshan taal marka dhinacan leftida waxbaa ka jira dhinacan rightkan waxbaa ka jira calaamaddan waxay sheegay wixii dhinacan jira wixii dhinacan jira in isku mid yihiin equation waa equationadu waa badan yihiin trigonometry ma kasii tahay haa maxaa sheegaa fansaara ku jira sin theta ku jirto fansaara marka hadday fansaar tahay oo equation tahay waa trigonometry equation see u xalinaynaa marka maxaa laga rabaa marka uga xalinaayo number a offer interval waxaad raadinaysaa solutionka ama xalalka ay leedahay intervalkan 0 degree ka bilow ilaa 360 degree laga gaaro inta u dhexaysa meeqa solution meeqa number oo xal u ah ayaa ku jira meeqa number oo inta dii lagu bedelo sin thetadan 0 dhinacan ka dhigaya sababto 0 lamid noqotaa la rabaa soo ma meeqa nambara inta ku jirta 0 ka bilow ilaa 360 degree inta u dhexaysa waa kuwa laga rabaa number b for all solution inta number guud ahaan ee jirta ee lagu xalli karo oo 0 ka dhigi kara equationkan isku mid ka dhigi kara soo saridana laga rabaa for all solution inta nambaro jiri karta positive halka ah solution aan leenahay marka waxaan leenahay because sin theta is to the first power so we use linear equation method maxaa lagu yidhi sin theta waxay leedahay first power jibaarka koowaad macnaha jibaar 1 inta ku qarsan square iyo cubic iyo magaarin marka hadday jibaarkeedu 1 yahay waxaan isticmaalaynaa equation linear equation horaan lagu soo sheegay waxaan soo qaadanay 2 sin theta plus 1 equal 0 waa midkaanaan soo qaadanay sideera u soo qaadanay stepka waxaan samaynaynaa 1kan pluskan wareejinaynaa dhinacaas kale oo rightkan geynaynaa
inta balaas ugu joogaa xagga waxuu ku tegayaa minus negative waxuu ku tegayaa maxay naqeen marka 2 sin theta soo hore equal ay naqanay 0 watana 1 wareeji minus 1 xagga ku maraa stepka waxaan sameynayaa 0 haddii laga jaro minus 1 soo baxaysa waxay naqeen marka 2 sin theta is equal negative 1 waxaa soo baxay 2 sin theta is equal negative 1 stepka xiga waxaan leenahay divide both sides labada dhinac dhinacan iyo dhinacanba waxaa u qaybisaa by 2 sin theta bisaan rabaa 2 inay baabadan rabaa sidan 2 u baabasho marka labada dhinac waxaan u qaybinaynaa 2 u qaybi marka haddii dhinacan 2 loo qaybiyey waa isla baxday 2 isla baxaya sin theta soo baxay inta haddii 2 loo qaybsan maxay noqonee inta haddii 2 loo qaybsan waxay noqonee negative 1 loo qaybiyo 2 aa soo baxay negative 1 loo qaybiyo 2 marka maxaa soo baxay sin theta waxay la mid tahay negative 1 over 2 aa soo baxaysa minus theta 30 degree sin theta ayaa half marka lagu leeyahay waxaa loola jeedaa theta waxaa waaye 30 degree waaye 30 degree waaye 30 degree ayay u dhigantaa minuskan hadda calaamadiisa waa qaab kale loo xaliyo u leeyahay amba looga jawaabo laakiin halfkaana qiimeynaynaa halfkan markii la joogo sin kormay half tahay waa 30 degree markii la joogo 30 degree markii la joogo waaya waxaan leenahay marka when sin theta is equal negative 1 over 2 markay sin theta goormee sin theta ay la mid noqotaa negative 1 over 2 1 over 2 30 markii la joogay noqotaa laakiin negative idoo ah goormee noqotaa it is negative in waxaa lagu yidhi it is negative waxay negative ku noqotaa in quadrant 3 negative ay ku noqotaa maadaama ay negative ku noqoto qaacida quadrant 3 a jirta oo lagu raadiyo xaglaha kala duwan theta waxaa lagu helaa markaas 180 lagu daray quadrant 3 markii la joogo soo maaha 180 lagu daray maxaa ku daray theta qiime soo qaadato oo 30 ka ku daray 180 lagu daray 30 waxa waaye 210 210 markii la joogo sin theta waa negative oo 1 over 2 ah ya mi fahamtad sin theta negative 1 over 2 goormee noqotaa lagu dhammaano 210 sin ku soo gaadhane waxaa marka hore soo gaadhan horta negative intay ku tahay quadrant 3 negative ay ku tahay kow ugu sokeeya quadrant 3 see loo helaa xagliis reference angles la yidhaha reference angles ka markii la joogo see loo helaa waxaa lagu helaa theta waxay la mid tahay 180 degree oo lagu diray waxaa theta haysta theta waxaa is dhawaa kanaa marka intaan haysta dhaa ku diraya 210 ay noqonaya kow quadrant 3 meel kale negative ku tahay ma jirtaa haa quadrant 4 na negative ay ku tahay it is negative in haddana maxay ku tahay quadrant 4 quadrant 4 ka ugu dambeeya waa markii la joogo maxaa lagu helaa asigane 360 degree ah waxaan ka jaraa waxaan haysan kan waa ku daraya quadrant 3 kana waa ka jaraya aan ka jaraa 30 waxay noqon marka 330 330 markii la joogane sin theta waxay la mid tahay half macnaha sin meeshan haddii 330 la geliyo negative half aa soo baxa haddii la geliyo 210 ka meeshan la geliyo sin 210 la geliyana negative half aa soo baxa marka sin negative half waxay noqotaa labada maray noqotaa 210 degree iyo 330 degree 330 degree jawaabta ugu horeysa samaynaysan waxaa waaye markaad soo xallisid ee jawaabku soo baxdo half oo kala soo baxday halfkan goormee sin theta half tahay 30 ay tahay laakiin halfkaygu minus waa maanta halfkaygu soo minus ma ahan bis 30kan waxaa waaye qaacida aan ku shaqayn doono bis waxaan samaynaa marka goormay negative tan waxaan u fiirinaa marka negative waa goormay tahay markaan goormay half tan soo gaadhay mugta 30 waaye goormay negative tahay negative waxay tahay quadrant 3 iyo quadrant 4 quadrant 3 see loo helaa xagash ay dhacayso waxaa lagu helaa 180 laga jaraayo theta waxay lagu diraayo theta waxay haysatid waa 210 quadrant 4 maxaa lagu helaa 360 laga jaraayo 30 degree waa 330 reference angles kaana hore aan soo qaadanay casharada hore youtube dib u raac playlist gal waxaan malaynayaa reference angleskaas inaan ku soo qaadanay casharii saddexaad afraad meelahaas aan ku soo qaadanay marka dib u baar waa soo helaysaa doo layidhaa waa kana muka the solution set is 210 iyo 330 ya so actually widi maxaa waaye
of interval 0 ka bilaab ilaa 360 intuu dhaxaysa meeqa number oo sax ka dhigi kara yaaba labada number oo sax ka dhigi kara waxaa waaye 210 iyo 330 maxaa kaloo laga rabaa marka for all solution inta xal oo yeelan karto inta xal oo kala yeelan karto isku wareeri maysid 210 kana haysatid waxaa ku diraysaa 360 ku diree oo ku dhacsan n n maxay u taagan tahay inta 360 degree waa hal wareeg n 1 ay naqaan markaas haddii n aad 2 ka dhigtid maxay naqaan laba wareeg n 3 haddaa ka dhigtid 3 wareeg n haddaa 4 ka dhigtid 3 wareeg hadba inta wareeg oo la soo wareegaya inta circle la soo sameynaa ay inta n u taagan tahay haddii hal wareegtan waa 360 degree lebis waa kana marka the solution set for all is waa kana 210 waxaa ku diray 360 degree n 330 kan waxaa ku diray 360 degree n where n is an integer n waa number jajab maaha waa tiro hal wareeg laba wareeg saddex wareeg wax bay u taagantaa waayahay tusaalaha xiga 1.24 waxaa la yidhi solving waxaa xalinaysaa sin theta ku dhacsan tan theta is equal sin theta sin oo ku dhacsan tan waxay lamid tahay sin of a interval waxaadna ka dhex raadinaysaa solutionkeeda 0 degree ilaa 360 degree bis for all solution lama dirin midkan intervalkan bisa la siiyey 0 degree ilaa 360 degree solution de marka solution de marka solution dan waxaan soo qaadanaynaa sin theta ku dhacsan tan theta is equal sin theta subtract both sides sin theta labadan dhinac waxaan ka jaraynaa sin theta intana sin theta ka jara intana sin theta ka jara waxayna qeybka sin theta ku dhacsan tan theta laga jara sin theta equal sin thetadan waxaan ka jaraa sin theta kale halkan marka la joogo marka labadan sin theta waa isla baxayan 0 dhinaca ka soo baxayso 0 dhinacane sidoo ku soo laabanayso sintan iyo middan ha kala goynin sababtoo sintan waxay ku dhacsantaa tan san kaligeed haddii laga jari kari lahay laakiin hadda tan ayay ku dhacsantaa lagama jari karo laakiin labadan waa la kala jari karaa labadan waa la kala jari karaa maxaa soo baxay marka sin theta ku dhacsan tan theta laga jara sin thetadan is equal labadan haddii la kala jaray waxaa soo baxay 0 halkan marka la joogo waxaan sameynaa factorization factorize isirey dhinacan maxay wadaagaan inta sin theta ta intana sin theta tal hal sin theta banaanka u bixinaa sin theta banaanka daba baxsho marka sintan waa baxday inta waxaa ku yaraa tan theta sin u qaybay naqaytanne waa baxday waxaa soo haraa wana soo baxa ya sintan haddii middan loo qaybiyo waa isla baxayan kanaa soo haray sintan haddii tan loo qaybiyo wana soo baxa equal 0 baan leenaa equal 0 markaan halkaasaan taagana marka qaybtan 0 aan lamid dhigaa ya qaybtan 0 aan lamid dhigaa qaybtan kalena markaan 0 lamid dhigaa waa laba number oo isku dhacsan oo 0 lamid ah mid walbaba kalkeeda ayaan 0 la mid dhigayaa waa kana marka sin theta soo qaado waxay lamid tahay 0 or amase tan theta oo minus 1 waxay lamid tahay 0 ha kan waa dhamaada sin theta waxay lamid tahay 0 laakiin tan theta minus 1 0 waa shaqo usii baahan kan hore iska soo celi marka sin theta equal 0 waa soo celina oo tan theta minus 1 kan wareeji xagee tan theta waxay lamid tahay 1 balaha soo baxayso halkan marka la taagaya marka waxaan leenahay sin goormay 0 tahay tan goormay 1 tahay qiimaha laga rabo halkaasaan ka tix raacayaa tan goormay 1 tahay sin goormay 0 tahay when sin theta is equal 0 goormay sin theta is equal 0 tahay tan theta is equal 1 goormay tahay su-aashaan is weydiinaynaa waxaan leenahay sin theta 0 waxay tahay in 0 degree markii la joogo iyo 180 degree ya markii la dhisaayo quadrant waaxaha markii la samaynayo waaxaha markii saan loo sameeyo waaxdan waa 0 degree waaxdan waa 90 degree 90 degree waaxdan waa 180 degree 180 degree waaxdan maxaa la yidhaah 270 degree waa waaxdanna waxay kusoo dhammaanaysa 360 degree kusoo dhammaanaysa 360 ay kusoo dhammaanay fiiri marka sin goormay 0 taha sin 0 waxay tahay markii la joogo 0dan leenkan dushiisa 0 ku taha leenkan dushiisa
zero ka bilow soo wareeg boqol sideetan haddii la yimaad labaas maray zero taha marka sin qiimeer waa la yaqaana waa zero ilaa boqol sideetan tan goormay one tahay tan goormay one tahay tan goortay one tahay soo ogaanina marka tan has a positive value tan maxaa la yidhi waxay leedahay qiimo balaasa qiimo balaas ay leedahay maadaama qiimo balaas ay leedahay oo tantan numberka soo baxa uu yahay number balaas ah intay balaas ku tahay magatan intay balaas ku tahay in quadrant one ugeli joogo balaas waa tan quadrant one ugeli joogo balaas waaye tan tiito waxay lamid tahay one maadaama balaas ay tahay one ay tahay tiitaha waa inay naqata 45 tan 45 ayaa one balaas soo saaraysa marka quadrant one la joogaa halkan waaxdana la joogaa 45 ugeli joogo ay tan one tahay waana balaas kow meel kale balaas ku tahay ma jirtaa haa inta sina balaas ku intay tan balaas ku tahay quadrantiga saddexaadii balaas ku tahay in quadrant three na balaas ay ku naqanaydan quadrant three see loo helaa daataan soo baranay quadrant three waxaa lagu helaa tiitada waxay lamid tahay tiraa boqol sideetan lagu daray tiitada waaxda koowaad wixii soo baxay waaxda koowaad maxay 45 dadka kii hore waaxda koowaad 30 aan qaadanayna marka waaxda koowaad maxaa 45 tan ku daraynaa 180 lagu diray 45 waa 225 fiiri marka tan theta waxa loo yaqaano tan theta is equal 1 goormee 1 noqon karta tan theta laba mar markii 45 la joogo 1 balaas ay noqonay markii la joogo 225 1 balaas soo baxa mar kale 1 noqonay soo jirta laakiin 1 minus uu noqonaa kaas 1 minus ayuu noqonaa sin goormee 0 tahay waxay tahay 0 degree mugala joogo iyo 180 mugala joogo meeqa number aysan anaga 1 2 3 4 afar number maano afartaas number ayaan qiimahan solution u ah 0 degree ilaa 360 degree inta u dhaxaysay ku jiraan sababtoo ka u yar waa 0 ka u weyn 225 waaye inta u dhaxaysay ku jira maano amaga halka ay waxay ku noqon karaan kuwaas ayaa u noqon kara solution u noqon kara the solution set is maxay noqon marka 0 soo qaad yaa ku xiga 45 kana ku xiga 180 waa la yariya 45 ku xiji 180 ku xiji 225 ku xiji solution setka intervalkan oo yeelana waxay noqon marka 0 degree ka bilow 45 degree 180 degree ilaa 225 degree ayuu noqonayaa saawadana sharafta badan oo hadii halkan la soo gaartay waxaan ka codsanaynaa channelka inaad subscribe tiraahidkan beelkana afrotid saawashid casharada ugu dambeeyay saxaabtaadana aad la wadaagtid meel dheer agaasiisid sharaf iyo karaamo aad u mahadsantihiin